kulan wacan wanaagsan daawadayaal meel kasta dunida ka joogtaan halka naga daawanaysaan waa Astaan Sports ku soo dhawaada falaqeyn gaar ah oo ku eegi doono kulanka xiisaha badan ee u dhaxeeya caawa kooxaha Real Madrid iyo Chelsea. kulankan waxa ila fuguri doona oo ila falaqeyn doona Cabdisamed Mire oo runtii aad ugu xeel dheer tartanka UEFA Champions League iyo labadan kooxoodna xog muhiim ah inoo haya. Cabdisamed marka uu ku soo dhawo Astaan Sports. aad baad u maasantay Binde kulay waxa weeyaan caawa ciyaar xiiso laba dhacaysa marka analyskeeda waa laga maarmi waayay baan jecelahay insha Allah waa kulan aad u xiiso badan ashqanta bidacada oo basagay aad waa kulan taageerayaashu dhan ay sugayaan xilli xasaasi ah ku soo hagaago kubadda cagta imika arrimo badan ay ka taagan yihiin marka kulay weyn oo analyse gareyn doonaa wixii taageerayaashu waa hagaaga ku soo dhawo Cabdisamed aad baad u maasantahay kulankan daawadayaal fara badan baa sugaya Real Madrid iyo Chelsea inay wada ciyaaraan waa hore ugu dambeysay kulankan taariikh ahaan Real Madrid iyo Chelsea intee kulan ay wada ciyaareen xog muhiim ah intee baad nooga haysaa والله runtii kole marka laga hadlayo taariikhda labada kooxood waa taariikh aad u balaaran laakiin hadii lagu noqdo head to head ka ama inta jeer iskaga hor yimaadeen kulamada Yurub runtii waxa weeyaan macluumaadka laga hayaa waa macluumaad runtii qariib weeyaan weligood waxay kulmeen 3 jeer bay kulmeen marka laga hadlayo kulamada Yurub marka laga hadlayo maaha kulamada dhan waxa ka hadlaynaa kulamada Yurub oo kaliya tan ka hadlaynaa ama Championka wixii la xiriira ama Super Cup ha noqoto ama UEFA ha noqoto saddexda kulan laba kamid ah waxa balisay Chelsea hal kulanna wuxuu ku dhamaaday barbardhac buu ku dhamaaday kulankii ugu dambeeyay waxay kulmeen 23 sano ka hor 1998 kii bay kulmeen Super Cup-ka markaasoo Chelsea ahayd kooxdii ku soo guuleystay UEFA halka Real Madrid markaa ay ku soo guuleystay Championka marka kulankaas wuxuu ka dhacay Monaco dalka Faransiiska Stadio de Louis II waxaan ka sii xasuustaa kulankaas in Chelsea ay dhaliyeen goal last minute man jecel Gospit oo ah mid kamid ah macallimiinta Premier League mar ahaan jiray Sunderland buu hogaamin jiray malaynaya ayaa goolka u dhaliyay marka waxa laga yaabaa taageerayaasha Real Madrid inay qariib ku noqoto in Chelsea aanay marka laga hadlayo xaga kulamada Yurub aanay Real Madrid Chelsea weligeed aanay ka badin marka waxay kulmeen 1998 iyo 1970 bay kulmeen marka wax guul dar ah kala mid weligoodba Chelsea lagama badin Real Madrid kama badin Chelsea waa xaqiiq facts jira weeyaan waa haga kulankan waa kulan xiiso badan waana noo sheegtay taariikhdiisa inta kulan ay wada ciyaareen si isku yimaadeen guulihii muhiimka ay kala gaadheen kulankan cid ka maqan labada kooxood ma jiraan haddana dadka eegno kooxda Real Madrid haddaynu labada kooxood ba eegno team newskooda kulay waxa weeyaan waa kubadda cagta wax badan bay isbedelaan waxa laga yaabaa in wax la saadaaliyo in qof maqnaado haddana hadhow tole waxa weeyaan macallimiinta fitnessku ay hadhow tole ku soo daraan laakiin sida uu xaqiijiyay maxaan ku raadayay departmentiga caafimaadka Real Madrid afar ciyaartooy oo waaweyn ba ka maqnaan doona Real Madrid sida saadaalinayaan Sergio Ramos oo ah difaaca khadka dhexe ee kooxda Real Madrid wuxuu ga maqan yahay arrimo la xiriira jilibka sidoo kale Valverde oo ah ciyaartooy aad u daayar oo reer Uruguay oo ciyaartooyda ugu fiican isagana coronavirus ayuu maqan yahay ciyaarta sidoo kale waxa maqnaan doona ciyaartan Mendy oo ah ciyaartooy reer France oo aad u wanaagsan oo ciyaartooyda imika aadka loogu tiriyay difaaca kuwa ugu wanaagsan adduunka garbaha ayaa isaguna problem dhinaca muruqa kaga yimid isaguna ka maqnaan doona waxa kale oo isaguna maqnaan doona Lucas Vázquez oo ah home growing player ama ciyaartooyda loo yaqaan ciyaartooyda maxaan ku raadayay ku dhashay kooxda ku soo barbaaray oo ah ciyaartooy aad u laf dhabar oo waxa weeyaan first style player oo meel badan ka ciyaara ee isaguna wuxuu maqlaan doona arrimo la xidha xagga tight-ka waxa weeyaan muruqa iyo waxyaabahaas la xidha horta afarta ciyaartooy bay Real imika ay xaqiijiyeen laakiin wixii soo bixi doona maanta tababar baa jira tababarka waxyaabo badan baa soo bixi doona waxa laga yaabaa qaar kalena isbedelada maqnaadaan waa dhanka kale kooxda Chelsea markan Chelsea team newskooda kulay qolada caafimaadku wax badan ma sheegin laakiin waxa la saadaalin karaa Kovacic oo ah ciyaartooy uu Thomas Tuchel aad u jecel yahay ciyaartooy reer Croat oo ahaan jiray ciyaartooy hore Real Madrid u ciyaari jiray inuu maqan yahay ciyaartan isaga waxa weeyaan surely weeyaan waanu maqan yahay waayo wuxuu maqnaa ciyaartii hore ay la ciyaareen West Bromwich Albion afartii kulan ugu dambeeyay Chelsea Premier League ciyaarta ma ciyaar koob kala duwan ciyaarto uu maqnaa marka waxa la saadaalinaa isagu imaado laakiin ciyaartooyda inta kale waa ready Chelsea waa hagaag inta markan ka imaano maqnaashaha kooxaha kulankan Thomas Tuchel ayaa wata kooxda Chelsea oo macaan reer Jarmal ah halka kooxda Real Madridna wato halyeegoogii hore ee Zidane labada macaan way iska hor yimaadeen tartamada Champions League labada macaan Thomas Tuchel imaka waxa uu Chelsea leelinaya muddo kooban waliba isagu guul muhiim gaaraya oo macallimiin waaweyn ka badin doona ka badiyay Thomas Tuchel awood nuucay ugu babac dhigan karaa oran kartaa kooxda Real Madrid horta bismillaahir rahmaanir rahiim waxaan waa Champions League weeyaan wuxuu u baahan yahay khibrad gooni u baahan yahay Chelsea malihi Chelsea waa ka khibrad yar tahay Real Madrid waa koox weyn oo cariiqa Chelsea Ingiriiska aad looga qadariyo weeyaan haddana waxa weeyaan marka xilligan oo kale la soo gaadho mentality-ga ciyaartooyda ayay ku xiran tahay haddaan Thomas Tuchel wax yar kaaga taabto taariikhda uu wajahay kooxaha Isbaanishka ah
wuxuu wajahay 6 jeer buu wajahay kooxaha Isbaanishka marka laga hadlayo tartamada Yurub saddexna isaga badiyay saddexna waxa weeyaan uu daroobay ku soo dhamaatay weligood koox Isbaanisha Thomas Tuchel kamay soo badin waxaan ka hadlaynaa intii uu leeliyay kooxaha kale Borussia Dortmund PSG kuwaasan ka hadlaynaa marka horta rikoorka noocaas oo kala uu haystaa waxyaabaha kale la yaab kale waxa kamid ah Thomas Tuchel 7 game buu imika hogaamiyay all competition ama kulamada dhan dhowr iyo 20 kamida lagama badin waa wax kale iyaduna aad u qariib weeyaan waxa kale taa kaaga si daran clean sheet difaaca aad buu Chelsea uga dhisay waxyaabihii aadka loogu canaantay tababarihiisa ka horeeyay Frank Lampard waxa kamid ah in kooxda difaac ay ka jilicsaneed weerarkooduna aan weerar fiican ahayn hadda waxa weeyaan wuxuu haystaa Azpilicueta oo ah ciyaartoy aad runtii loyal oo ah kooxda daacad oo reer Spain Rodiger Thiago Silva Christensen oo isaguna ah ciyaartoy kale aad u wanaagsan oo Denmark ka soo jeeda يعني إمك زوما جيمس chilwell يعني waxa weeyaan manduumo difaaci oo aan cid allaata cid haysata aan jirin ayuu haystaa waxa la dhahaa malaha hal gool mise laba gool wax noocaas oo kala ayaa kulamadii ugu dambeeyay laga dhaliyay kulay tacticska analyska si fiican uma hayo laakiin waxa weeyaan si fiican bay uga dhisan yihiin xagga difaaca waxyaabaha la yaab kale imika jira waxa kamid ah in tababarihi uu ku confuse gareysay yahay kuma doorata kaba soo qaado kala 4 iyo 5 Thiago Silva iyo Zuma iyo Christensen iyo Rodriguez iyo Azpilicueta ka ciyaara kolba waxa ku xidhantay shaxda lagu ciyaarayo 4 marka lagu ciyaarayo 3-4-3 teeba munaasiba 4-4-2 marka lagu ciyaarayo kuwa munaasib macallinka waxa weeyaan confusion buu qaaday tayadii ciyaartoyduna waa tayadii aad u sareysan sidaan xaqiisa hadaynu wareegno sidaan waa mutaawid yani wuxuu leeyahay tactical analyst la yaqaano ku ciyaara ayaa jirta oo ah pressure badan oo xagga hore uu saaro laakiin tactic kasto adduunka jirta xataa Guardiola tic-tac dhaho waxay leedahay ceeb bay leedahay marka haddaynu eegno labada macallin tactic ay isticmaalayaan waa tactic attack u yar badan weeyaan waxaanan hubaa in taageerayaasha caalamka ee labada kooxood ay caawa daawan doonaan ciyaar runtii opina oo weerarkeedu badan iyo goolashuna ay iman doonaan inkastoo oo ay culimada kubadda cagta ku xeel dheer ay dhahaan garoonka laftiisu saameyn buu ciyaarta ku yeelan karaa waayo waa garoon dusha ka furan Santiago Bernabeu imika duba casriyeyn baa ku socota garoonkan cimiladu ma saameyn xooggan ku yeelan xilliga roobabka xilli roobaadkii weeyaan garoonkuna wuu furan yahay haddii roob yimaado gamekii wuxuu bedelayaa dee jawigiisii buu bedelayaa marka taa laftigeeda waxa weeyaan waxa laga qabaa walwal badan baa laga qabaa waa hagaag labada macallin wada kala sharaxday qaab ciyaareedkooda haddaan eegno dhanka Real Madrid oo caawa martigelinaysa kooxda Chelsea qaab noocyo kaga badan kartaa bas oran kartaa kooxda Chelsea Real Madrid waa koox caana kubaddeeduna weerar bay ku dhisan tahay iyo kubad jamaaci ay ku dhisan tahay meesha ay u jilicsan tahay kooxda Chelsea waxa weeyaan waa garbaha Real Madrid waxay haystaan ciyaartoy runtii aad u dheereeya ninkan Braziliga Vinicius Junior waa ciyaartoy aad u wanaagsan inkastoo finishing-ku ka yar xun yahay oo aad moodid ba inaanu Brazil ahayno Romario iyo Ronaldo iyo nimankii sida fiican kubadda u dhameystir jiray inaanu daawan laakiin waa ciyaartoy dheereeya fursado badan uu keeni karaa haddii counter-attack ama waxaan loo yaqaano kubadda cagta transformation-ka yani isbedelka marka kubadda waxa weeyaan counter-attack laga reebo Chelsea wax kubad jamaaci iyagu ciyaaraan imika kubadii Borussia uu ciyaari jiray Thomas Tuchel oo ah kubadda ay ciyaartoydu mar wada baxaan deetana ay soo wada noqdaan ciriir badan oo noocaas oo kale ay sameeyaan marka kubaddu waxbay ka qaldamayaan hadiiba Real Madrid ay akhdaada Chelsea ay ka faa'iideysato marka transformation ku dhacaya ama kala wareeg waxaan oran karaa waxa weeye chance ay Real Madrid keeni kartaa waayo Benzema ayay haystaan Benzema oo ah nin waxa weeyaan goolasha marka meelaha carabto waxa kamid ah labada garba in ay kooxda Real Madrid kaga badan karto kooxda Chelsea waayo Thomas Tuchel wuxuu ku ciyaarayaa 3-4-3 buu ku ciyaarayaa saddex dambe oo adabaaga iyo afar dhexda iyo laba garoo difaaca jira oo soo raacay marka saray u baxaan wuxuu ku ciyaarayaa Azpilicueta iyo Rudiger iyo Christensen buu ku ciyaaray xagga dambe ama Azpilicueta iyo Zuma adigu waxa weeyaa saddex santar difaac iyo laba garab iyo garbihii hore u yar horeeya oo dhexda caawinaya hayo ciyaara marka Vinicius Junior oo kale aad haysato waad soo soconaysaa waa hagaag dhanka marka la eego kooxda Chelsea iyadu qaab noocyo kaga badan kartaa wad soconan kartaa Real Madrid inkastoo aad sharaxday Real Madrid inay garbaha kaga badan karto Chelsea iyaduna waa la cilad weeyaan kooxda Real Madrid tactical analysis-kooda haddaan dub yar eegno Real Madrid waa koox mar wada guurta oo ciriiri badan saarta afka hore kooxda kale la ciyaarayaan garab xaq oo waxa lagaga tagaa imika caawa waxa jooga kulay Ramos ma joogo ana ciyaartooyga ugu khibrada badan waxa jooga caawa Militao iyo Carvajal iyo waxa jooga ninka la Fran baa jooga waa saddex center back weeyaan Chelsea ay haystaan weerarka ma taqaanta Pulisic bay haystaan Hodgson bay haystaan waa ciyaartooy runtii aad u dhaadheereeyay weeyaan Tim Werner baa jooga oo kubadda Hakim Ziyech baa jooga nimankaas waxa weey waa niman counter-attack iyo kala wareeg runtii aad ugu dheereeyay weeyaan ku darso Chelsea meelaha kale ku badan karto waa koox Ingiriis weeyaan kooxaha Ingiriiskuna waxay caan ku yihiin set piece-ka waxaan loo yaqaano koona hadii la soo qaado waa gool
marka hadday Oliver Giroud iyo bay hayaan iyo Zuma iyo Rodriguez bay hayaan marka Thiago Silva ciyaartoyda noocaas oo kala ba u ciyaara haddii set picks la soo qaado corner la soo qaado ama Bilifson la soo qaado niman dhalin karaya weeyaan Toni Kroos ciyaartoyga la yiraahdo reer Jarmal khatar ma ku noqon karaa kooxda Chelsea waayo Toni Kroos waa ciyaartoy kaliya ta qarsoon kubadda u sameeya kooxda Real Madrid natiijooyin fara badan u gooya inuu kulanka Real Madrid iyo Liverpool imin afkayga ka soo baxday Toni Kroos oo kaliya maaha laba ciyaartoy adduunyada inta kale aan haysan Real Madrid haysta Lucas Modric iyo Toni Kroos waa ciyaartoy meel walba ka dheeli kara 8 baad geysan kartaa 6 baad geysan kartaa 10 baa marmarka qaar la keenaa laadkiisu waxa weeyaan wuxuu kamid yahay ciyaartoyda ugu laadka toosan leh baaskiisu accuracy-giisu aad buu sareeyaa isaga iyo Modric markay maalintooda markay tahay way ciyaartoy kasta maalin buu leeyahay maalinkiisa markay tahay Toni Kroos cidina ma manage gareyn karto ma joojin kara wiilka reer France Angola kanta caqabad ma ku noqon doonaa Toni Kroos kolley waxa weeyaan waxay ku xidhan tahay kulanka jawigiisa ku xidhan tahay Angola kanta waa ciyaartoy aad u khatar weeyaan ka firfircoon isku style ma ciyaaraan laakiin waxaan qabaa in ciyaar fiican labada kooxoodba ay soo bandhigi doonaan waliba waxaan qabaa ciyaartaas ciyaar xagga dhexda lagu kala badinayo ayay u eg tahay kooxda dhexda maamusha waxay la mid tahay koox kubadii badisay ee la mid tahay natiijadu go'aamisay waxaan kaloo qabaa position-ku in aad isugu dhawaanayo position-ku aanu farqiga xagga ciyaarta kubad haysashada aan lagu kala fogaanay waa hagaag macallimiinta way hadleen jireed bay qabteen haddaan soo qaadano macalinka kooxda Chelsea ee reer Jarmal hadaladiisa maxaa kamid ah macalinka reer Chelsea runtii hadaladiisa aad waxa kamid ahaa wuxuu aad ugu dheeraaday xagga siidwalaha oo waa tan imika problem badan uu ka taagan yahay Europe oo ah maxaan ku raadayay Florentino Perez oo ah maxaan ku raadayay ninka hogaamiya ama gudoomiyaha kooxda Real Madrid waa kan super laagi doorashadii mar kale ku guuleystay marka qoladii taageerayaasha Real Madrid caalamka waxay leeyihiin waxay doonayaan xir kubadda cagta Europe waxay doonayaan inay reebaan marka 100% maadaama Chelsea ay kamid ahayd kooxii marka apply gareeyay Super League wuxuu yiri ninka Thomas Tuchel 100% waan ku kalsoonahay in macallin kasta oo ay keento buu ku leeyahay garsoore kasta oo la keeno waan ku kalsoonahay in marka uu si cadaalad u hayn doono sidoo kale macallinku waxyaabaha kale uu sharaxay waxa kamid ah wuxuu aad iyo aad ugu dheeraaday in la ciyaarida team sida Real Madrid oo kala ay tahay sharaf weyn oo ay ku tusiso horumarka ay Chelsea ay sameysay oo ay semi finalka marka Real Madrid ku qaabisho runtii waxa sahlan ma marka aad buu ugu dheeraaday wuxuu yiri meesha guul baan u imanaynaa kooxdeedu way diyaarsan tahay waxa weeye wax naga dhiman ma jiraan haddaynu Zidane isaga laftiisa oo ay ku noqono Zidane wax badan buu ka hadlay laakiin qodobka aadka ii soo jiitay wuxuu aad uga hadlay Eden Hazard oo lacag badan laga bixiyay xoogiisa aynu ognahay Chelsea sidoo ku ciyaar jiray aynu ognahay laakiin carabtu waxay dhahaan tajri riyah bima la tashtahi sufun dabayshu badan waxay u socotaa meel aanay u socon doontu waxay u socotaa meel aanay dabayshu u socon marka ninkii nasiib darro badan baa soo wajahday waa kan oo imika waxa weeyaan dhaawac buu ka bixi laayahay barashar baa saaran boqol mushaharkiisu aad buu qaali u yahay mustaqbal buu leeyahay waanu yar yahay wuxuu doonayay inuu koobab waaweyn ku guuleysto oo sidii Ronaldo iyo nimankaas ay successful Real Madrid ugu noqdeen ayuu doonaya number culusna waa wataa dhigi barashar badan baa saaran xaqna waxa weeyaan qofkii de nature-kiisii iyo dabeecadiisii iyo wixii uu doonayay isma laha oo waxa weeyaan waa daawacan tahay calfku wax ka qaba ama lugta xagga hoose wax ka qaba hadduu in yar ordo oo ay lugtu yar kala wareegto haddana waxa weeye medicalka waa la dhigaya marka wuxuu wanaagsan yahay aad buu wanaagsan yahay moralkiisu aad isagoo moralkiisa dhisayo aad uga sheekeeyay Chelsea markuu ka hadlay wuxuu waa koox wanaagsan haddaan koox wanaagsan hayna kan maybe soo gaareen buu marka diyaar baan waan si fiican baan la tacaamuli doonaa buu yiri ataagiyadooda marka inahaas kaaga sheegi karaa labada macallin waliba laba kooxood Chelsea ka iman way waajihi doonaan caawa kooxda runtii ciyaartooyo badan ba goalkeeperka kooxda Real Madrid Courtois isagu wuxuu wajihi doonaa kooxdiisii hore Eden Hazard wuxuu wajihi doonaa kooxdiisii hore xaga kale Kovacic ayaa oo caawa dhaawaca ayaa waxa uu daawan doonaa kooxdiisii hore iyo garoonkiisii hore ee uu ku ciyaari jiray ee uu tababarka ku sameyn jiray Stadio Di Stefano ayuu caawa daawan doonaa oo iman doona waa hagaag intaanu kaga imanno hadaladii macallimiinta iyo waxyaabaha ku kala badanayaan labada kooxood ee meelaha lagu kala wanaagsan yahay adiga Cabdisamad Mir ahaan kulankan in badan baa daawanaysay tartanka UEFA Champions League kooxda Chelsea markay semifinalka soo gaadhay waliba ay waajahdo kooxaha reer Spain xaalad noocee garoomada ku soo galaan wallahi horta labadaas falsafadood ba aad u kala duwan nimankani waxa weeyaan waa niman Spain falsafada tiki-taka ay xambaarsan yihiin kubadda gaaban bay aad u ciyaaraan kuwan kale Ingiriiskuna waxa weeyaan kubad xoog ku dhisan oo bogoska la keenayo kubadda ay badan aad u ciyaaraan laakiin kubadda caalamka iminku isbedeshay macallimiin bay ku bees gareysan tahay ana waxaan qabaa ciyaar isku dheeli tiran ay noqon doontaa jawiga ay Chelsea ku iman doontaana waa Chelsea waxa weeye inay goal away helaan goal away haday caawa helaan Stamford Bridge marka la tago aad bay xaalad ugu adkaanaysaa nimanka la Real Madrid laakiin Real Madrid maadaama Stamford maanta ay joogaan Bernabeu Stadium
Santiago Bernabeu maadaama ay joogaan waxay isku dadaali doonaan laba iyo wixii ka badan inay helaan ma u malaynayo ciyaar kala baqayaan noqon doonto jawiga kala baqayo xidiga reer Chelsea imika shumca soo baxaya oo Super Franklin bar soo saaray reer England Mount khatar ma ku noqon doona kooxda Real Madrid weligood ba Ingiriisku caynkaas ahaayeen waxay leeyihiin wax loo yaqaano home growing players waxay dhahaan waliba Chelsea dadka taageera waa dabaqada dhexe shaqaysa weeyaan waxay dhahaan maamaha caana bay leeyihiin kooxda Chelsea oo taageerayaasha ay leeyihiin waxay dhahaan born is the king ka u dhashay baa boqor ah ay dhahaan John Terry bay ugu soo qori jireen marka badanaa pressure ciyaartooyadaas waxay ogyihiin mas'uuliyad badan inay ka saaran tahay taageerayaasha kooxda sababta uu Frank Lampard ugu dhagan yahay Mount ma aha tayo ma aha uu fiican waa ciyaartooy fiican laakiin waa ciyaartooy average oo caadi ah ciyaartooyda kala mid ah laakiin waa ciyaartooy xaafada ah weeyaan waana ciyaartooy maxaan ku raadayay ku koray Chelsea oo waxa weeyaan garanaya qiimaha ay leedahay naadigani qiimaha uu ku fadhiyo isaguna dadaal badan runtii uu sameeyay xataa macalinka Tuchel markii uu yimid macalin Tuchel wuxuu isku dayay inuu Mount fariisiyo maadaama uu kamid ahaa qaab ciyaartii ka saaro maadaama uu ahaa askartii Frank Lampard uu ahaa laakiin uu guuleysan waayo maadaama ninkii taageero badan wuxuu ka haystaa taageerayaasha Ingiriiska Chelsea taageero ka haystaa isagina uu fiican yahay golashina uu dhalinaya qaacida caam waxaa jirta kubadda cagta la isticmaalo oo ah never change a winning team koox guuleysatay weligaa bedel maanta hadaan gool dhaliyo beri waan ciyaaraya qasab adduunka waa caynkaa weeyaan waxa weeyaan taa waa biyo kama dhibcaan marka waxaan qabaa haddii waqtigu uu saamaxo oo ciyaarta tactical ciyaaraya uu saamaxo Mount ciyaar fiican uu soo bandhigi karaa fursadna uu kaga faa'iideysan karaa isku soo saari karaa waa hagaag cabdi mirahan inako barnaamijka gabagabadii weli ku jirna kulanka maxaad ku saadaalinaysaa markaad eegtay labadii macallin waad iga warantay waxaad iga warantay labada kooxood meelaha ku kala badin karaan ciyaartooyada khatarta ku ah labada kooxoodba kulankan markaad eegto jawiga Spain lagu ciyaarayo kulankan muxuu ku dhamaan karaa bas dhawr kulankan anigu markaan si meel walba aan ka eegay kubadda horta lama saadaalin karo waxa weeye wajiyo badan bay qaadataa kubadda waxa saameyn ku yeelan kara siirulaha saameyn ku yeelan kara jawiga saameyn ku yeelan kara bedelka saameyn ku yeelan kara feerta saameyn ku yeelan karta laakiin haddana anigu eego kulankaasi waxa weeyaan waa kulan barbara 1-2 2-2 0-0 waxa leedahay waa isku barbar dhacay kulankaas waa barbaro aniga saas ay la eeg tahay sabab markaad eegtay maxaad ku qiyaasteen sababta markaan keenay Chelsea waxay ku imanaysaa waa la soo taabnay labada shab Chelsea ciyaartu waa ciyaarsan final qoladii badsaa final ku tagayeen soma sax maadaama ciyaartu saa tahay qolak Chelsea waxay ku imanayaan adigu waxay eegayaan 40 mirir hore waxa la 15 22 daqiiqo hore inaan gool laga dhalin way isku dayayaan difaac bay galiyaan kuwa laftigooda way ataagayaan sidoo kale ciyaarta waxyaabaha kale ee saameynta kule waxa kamid ah siirwalaha oo aan halkan kaaga sheegin siirwalahu dhammaan siirwalayaashu waa niman Hollandiisa weeyaan waxyaabaha yaab kale aan u sheegayo taageerayaasha labada kooxood ay ku qosli doonaan waxa kamid ah inuu siirwalahu yahay part time police officer in police dalka Holland ka shaqeeya oo shaqadan siirwalnimada iyo tan police-kaba labada isku dhex wada yaan iyo Hazal oo iyaguna aan ka dhicin oo wastaadiin ba la sheegayeen ayaa iyaguna caawin doona faartana waxa fadhiya nin kale oo isaguna Hollandiisa fadhiya nimankaas markii la soo eegay ciyaari hore soo qabteen kaarkooda runtii kaarar saa u badan maaha ciyaar physicalka way sii daayaan marka xogaa waxaan sidii walaha laftigiisu saameyn ku ciyaartii uu ku yeelan karaa oo waxa weeyaan waxa dhici karta marka in hadhow tolo sidii walaha laftiisi hadii kaar ay yimaadana waxyaabo kale yimaadana saameyn ku yeelan karto marka ciyaarta xaaladda ay ku soo hagaagtay iyo waqtiga imika ay taagan tahay ayaa waxaan anigu aan u maleeyay in ciyaartaas ay ku dhamaanayso barbar dhac ama 2-2 ama 1-1 waliba 1-1 baa badanaya waa hagaag aad u mahadsantahay Cabdisamed Mire ee barnaamijkeena falqeynta gaarka ah ku eegnay kulanka xiisaha badan ee caawa u dhaxeeya kooxaha Real Madrid iyo Chelsea waana kulan afar dhamaad ka tirsan tartanka UEFA Champions League ayaan isla fuguranay barnaamijku waxaan la socodsiinay anigoo Cabdirasaaq Mindhaa waxaan igaga tagayaa sida ay salaam Allah